waxa ay ahayd maalin ay u hanqartaagayeen dhammaan asxaabta iyo ururada siyaasadda ee ka jira Somaliland waxaa si habsamiya loo furay goobaha codbixinta doorashooyinka degmada Ee Boorama abaaro 7 aroornimo kuwaasi oo ay indhahagu qabanayeen dad aad u tiro badan oo ku jira safsaf isla markaasina sugaya inay u codeeyaan musharaxa ay doonayaan gudoomiyaha gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci ayaa ka warbixiyay xaaladda nabadgelyo iyo tan doorasho ee gobolka Awdal Rahmaan Rahiim maanta oo ay bishay 20 bisha November waa maalintii aan sugaynay weeyaan waa maalintii aan maaragtay codkeena bixinaynay weeyaan ومالتان دورنيني مسؤولينتا دولة هوسة حلبانا دولة هوسة عندنا نطورنو تد مسؤولينا وحقبت له ومحي هيدي دقيقة كسب في عنو شقيسة الحمد لله نبتقلي أنكسو قادني إلهي بقى محد عليه ما أنتنا الكسر قعدنا ونقع عدد بحننا عد كيف بحننا مركا إلهي مهدي وحنا إلهي كرجينا يسوي العكس نوقع مسؤول إذا كنا ميديا تاتين عادي بأنكم هنقيا سيدا إلى شلي إلى تراد في ديسين برامجنا وعندكم جوابنا. أكن وادك مدة بورما قدوم يكور الدجموين كي كلا قبل قصيد درشين كي كلا. دجموين كي كلا دجمة بكتي ولا يسموه بصدا دجمة اللي هي عادي عادي دجنتاي حلي وقتي ولا يسمى لقيبي سنادو ذي لقيبي وين كسر تعود بحنتي سوى ولا يسمى ساق العودة Abdirashiid Xirsi oo ah gudoomiyaha komishanka doorashooyinka gobolka Awdal ayaa ka waramay sida ay u socoto doorashooyinku gobolkani Awdal guud ahaan alxamdulillah gobolka oo ka kooban 4 degmo oo waaweyn sida Macasbad oo Boorama Baki Luhaya Zaylac oo hadda la wada xiriiray goobaha dhamaansi nabadgelyo u furan yihiin Luhaya oo ay tarha shaqeed ka dhacday oo xalay ku gaaray saaduudi xalay wada qiimay goobka si nabadgelyo ku gaareen wararka naga soo gaadhay magaalada Luhaya ayaa sheegay in ay codbixintu si rasmi ah uga socoto deegaanada hoos yimaada degmadani Luhaya kadib markii ay shalay ka dhaceen shaqaaqooyin sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana wararku intaasi ku darayaan in kulan dheer oo dhex maray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo odayada dhaqanka ee degmada Luhaya ay soo afjareen xiisadii ka taagnayd deegaankaasi si kastaba ahaatee waxaan la iska indhatiri karin xaaladda adag ee ka jirta safafka dhaadheer ee laga codeynayo taasoo ay dhibaato kala kulmayaan dadka daadoodu aadka u weyn tahay Khadar Maxamed Xasan laba qayle TV caalamiga ee Soomaali Saad magaalada Boorama